wuxuu yiri waabu geeltira u dhoofay galbeed iyo Yurub gunteeda goortu tagay buu la yaabay garoonka markuu istaagay cid uu gartay uu ka waayay garaadkiisu su'aalay ileen dad cad weligii ma arkine garaadkiisu su'aalay waa maxay dadkan wada guduudan ee guluubka indhaha cagaaran talow miyay wada gubteen oo galka iyo duubka ka baxay malaha gabadh iyo nin toonay maanaha galay guri waraabo intuu ku maqnaa gorfaynta wuxuu galay laami buuxdo gawaaraha jiiri gaadho guuxiyo hoomba ku yeeray intuu xoogaa isgaabshu guntiga golxob uu ku haystay buu ku waabshay gawaarida oo dhan Yurub buu yiri gol waraabe bahal buu moodaya markaa car soo gaar aagagaygan walee golxobteedu waa sun goolka adag baan ka taagay haddaad ani iigu nuusto walee inaad geeridaada ka sheekayn galab kale gaarigu la hadleemo marka maxaa dhici kara waa in ciidan la garaaco ninka de wadada la taagan baash waxa la garaacay boolis geesh baa yimid aad u xoogan intay u xireen gardaadub ayay geeyeen station geeltirihii uu cataabay tullaay maana gurmad waayay maanta tullaay yaa reer guhaadbal garweyniyo guula dheere fariin gaarsiiye caawa oo nimankii geel wada dhaqan jireen moogta yaa dhaha geesigii tulkiina gaala xirato gumaysay maray tahay goor dambeeto ayaa gabadh loogu yeeray taqaan gaalada afkooda gooniyo kaba aad u dheeriyo waxay gashaneen dhar gaaban hablaalka ku koray moogta aniga waa gabadh Soomaali waa garanaya gurb weeyaan luuqadaydu ayay gaar ugu sheegtay naamidaadan gaagaada lihi gabdhaha Soomaaliyeed gareys bay wada xidhaan oo guntiinay wada qabaanay maxaa kugu gaabshay marada my god it's fashion way bait waxaad garanaynin weeye adigu wali gaadhi weeye ka gudubdanahaaga sheegay ayay tiri wuxuu yiri ha adho gaaladii aan arkay gardaadubka iyo xidhaad la garashay maanta gacmaha iga fura sakiinta golxobtii aan watiinaysiiya igeeyay dhulkaan lahaa gafkii xumaha ay badeen mar baan idinka goyn giraan weeyo dunidu marbaad goboladan degiyo banki gariyaad imaan gowsaha aan idinka gurigun yahay oo xurxumiyo oo dhaaranaya marbaad dila saarti doonaa moogtay geeltirihii waa la dhoofshay dhulkiisii baa la geeyay goortuu tagay buu ku dhaatay guulu mahad gaarsiiyay dadkii buu gacal salaamay qaar buu gacantii la dhaafo gaadada u saaray waxa lagu yiri wargeedii diguyaal nagamaad maqnayna magelin baad sanada mooday wuxuu yiri waxa ay gaaray ayaa iga dhigay gadaaso garaadliiba ay qaaday gabaad ciideena weeye guunyo iyo ahanti aan dhamaana geela aan dhaqana weeye hooy iyo guri lagu gamcay gogasho hararkeena weeye guurtida odageena weeye gayaan hablaheena weeye geesugeenankeena weeye gobtuba Soomaali weeye buu guduudana aadad moodiyo gumbaan booqdo u dhoofay waamad u tagay cid aan gartay waan ka waayay waxaan gacan iyo lahayn af waa gaarigi ayaa guuxigu asqeeyay haddana god ayaan u hoydo garaac la adiga la daalay bir aan cidi goyn kareynin gacmaha iiga adkeeyay buu maray tahay goor dambeeto ayay gabadh noo gar qaado celiyaan iri gudoome buu ragii markaa way xanaaqeeno markuu soo gabagabeeyay garweyna hadalka qaatay wuxuu yiri geed dheere ragii ku galay sida xun ma garanaysaa reerahooda qabiilkoodina ma noo sheegay maya garweyne geeltira fadhiya istaagay geedow ragga luuqadooda aan garanayay xasuusay raggu maxay ku hadlayeen dabadaadan qabiilkooda garanay wuxuu yiri googo way ugu dhaxeen goodbye mar bay dhaxeen mar goortay xidhxidhayeen mid aan ganaca ka laaday oh my god bulaabu gabadhii noo kala gar qaaday iyadana geeral bay dhaxeen buu gabadhii geeral bay intaas hadee astaan loo qaatay guyaal dabadeed ayaa gargaar haayadi wadankiina waxa ay gargaar ka shaqeeyay moota guyaal dabadeed ayaa gargaar haayadi wado Gibson iyo laba gabdhood iyo gudoominayaan Caydaan deegaankii geedi iyo geeyga soo caga dhigteen waa nin Gibson la yiraahdo hay'ada cadaan mo geedi oo wata gudin af dheer iyo geeltirayaal ciil qaba Gibson ugu tagay goobtii geedaa yiri maxaa tihiin gargaar wada baan hoo my name is Sir Gibson guri good girl is weyn oo gabdhahan anay la socdeen halka maxaa ka soo baxaya geeralti ha wuxuu yiri geeltira maqlay geeralti ayaa gacan qaaday oo gafuurka ku jiiday faan ya Gibson baa yiri durbaba my god you boxer me my god tina ugu daray moogtahay geedaa yiri way isagii malaha kuma garanaya isleedahay geedigaad gumeyseen waayo hore wargafkii xumahay badeen in haddaan ka goyn karaa goosaha aan ka guri karaa hayeeshee dhaqan goobeed ayaa gacantay hayo martida gudubka ma galno gabood falku waa mamnuuc geeyigan waa lagu sharfaa hal goolaa loo qalaa waliba waa loo goglaayay garwaaqsan midda gartaa buu gargaarka noo wadana adaa gaajoonay adigu guriga geebiga Soomaaliya marti soorka muhiimadu waa inta waa tahay aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa abwaanka Soomaaliyeed
qaliib faarax xayir oo jooga magaalada Gothenburg caasimadda labaad ee dalkan Sweden oo martin ugu ahaa xafiiska telefishinka Somali Channel ee Gothenburg abwaan aad baan ku soo dhaweynaynaa waanan kaaga mahadcelinaynaa fursadan qaaliga ah oo aad nasiisay iyo ummadda Soomaaliyeed oo uga faa'iideysay fankaaga aadka u wanaagsan adiga daayirtii haddaan nahay u bixi dalkaanee ma dhisnaa dalkeenii dadka ma isku keenaa diinteenna wacan iyo ma tusnaa dariiqada innagaa dalkaba leh dawlad ma horseednaa la iswada dagaaliyo la isku wada dambaabiyo taa waan ka daalnay ma dhahnaa dadkeena uu dambi dhaafka doorbida inay labada daarood midda hore darxuma tahay dambana dahabi tahay doog iyo ugbaa tahay janno lagu dabaashiyo deeqda eebbe ay tahay dadka ma wargelinaa doorkeeni weeye dulmiga ma hor istaagnaa xaqa ma u dagaalnaa dabka shidan ma deminaa ubadkeena daayacan daryeel ma u samaynaa dugsiyada ma geynaa